Sii naftaada 6 bilood. Waan ogahay dadka qaraya waxay leeyihiin 6 bilood way badan tahay, laakiin haddii aan ku xasuusiyo 6dii bilood ay ku soo dhaaftay, maxaad ku qabsatay? Naftaada maxaad ku soo kordhisay? Maxaad ku baratay? Hadafyadii aad degsatay ma gaartay? Tusaale waxaad dhahday Qur'aanka ayaan baranayaa ama waa xifdinayaa, luqad ayaan baranayaa ama shaqo ayaan bilaabayaa, laakiin ma baratay Qur'aanka? Ma baratay luqadda? Ma bilowday shaqada? Jawaabtu waxay noqon kartaa haa ama maya, laakiin adigoo waxba qabsan ha dhihin haa waan gaaray hadafyadeydii, sababtoo ah qofka aad beentu sheegaysid ma aha saaxiibkaaga ama saaxiibadaada, laakiin waa naftaada. Mana soconayso inaad isku qancisid wax aad og tahay inaysan jirin. Haddii aad hadafyadii hore aad dejisay aad gaari weyso, hadda waxaad raacisaa hadafyadii aad degsatay ficil, sababtoo ah ficil la'aan waxba kuma suurta gasho. Sii naftaada 6 bilood. 6daa bilood waxa aad samaynayso ha noqdo wax adduun iyo aakhiraba ku anfici doona, waxaana lagama maarmaan ah inuu kuu qoran yahay, sababtoo ah maskaxdaada waxba kuma hayn kartid. Laga yaabo inaad rabto 5 waxyaalood oo kala duwan inaad gaarto, waadna kala hilmaamaysaa, laakiin markuu kuu qoran yahay hadafyada aad degsatid, waad tixraaci kartaa. Halka uu kuu marayo waad ogaan kartaa. Inta hadaf ee kuu harsan waad garan kartaa, dibna waad ka bilaabi kartaa. Maxaan sameeyaa 6dan bilood? Qof walba asiga ayaa garanaya waxa u qorshaysan iyo waxa ka maqan, laakiin aniga ahaan waxaan halkan ku xusayaa waxyaabaha ugu muhiimsan. Lambar 1, salaada. Salaada inaad waqtigeeda ku ilaaliso, sababtoo ah waa xiriirka idinka dhexeeya adiga iyo Allah. Sida kalena salaada subax ku dadaal iyo salaadaha kaleba. 2, inaad akhrido Qur'aanka maalin walba inta aad awoodo. Haddii aadan aqoonin, hadda bilow barashada Qur'aanka. 3, naftaada jeclow, maxaa yeelay haddii aad naftaada jeclaan weydo, cidna kuma jeclaanayso. Khalad haddii aad gasho, naftaada adiga la hadal, weliba sida ugu wanaagsan ula hadal, iskana ilaali inaad niyad jabiso. 4, saar naftaada dadka ku niyad jabiya, dadka murugada ku dareensiya, dadka marka aad la joogtid aad ciriiriga ku dareentid, sababtoo ah adduunkan laguma keenin inaad qof kale xilliga uu faraxsan yahay aad faraxdo, xilliga uu murugsan yahayna aad murugooto. Ku noolow noloshaada bilaa buuq. 5, caafimaadkaaga ka fikir, sababtoo ah inta aan soo xusnay iyo inta adiga kuu qorshaysanba waxaa sameyn kara qof caafimaad qaba. Tani waa noloshaada, kaliya samee wixii aad awoodo si aad u jeclaato oo aad ugu raaxaysato dhinac kasta oo ka mid ah.